الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad u salaamayaa martida sharafta badan jazaahum allahu khayran ee xafladan maanta nagu soo maamuusay inay ka soo qayb galaan talabkii ay soo ajiibaan haddii ay tahay culimo hadday yihiin mas-uuliyiin iyo arday iyo waalidiinba jazaahum allahu tabaaraka watacaala khayran maanta ilaahay subxaanahu watacaala mahaddii iyo fadligii waxaynu wada joognaa xafladdaasoo aynu ku maamuusayno ardaydii ugu horreysay ama dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisay dibloomka barashada afka af carabiga dibloom alluga alcarabiya ee maxadkeenna machad almacaarif lildiraasaat alislaamiya walluga alcarabiya xaqiiqatan maxadkaasi hadda waxa uu furnaa muddo sanada 2021 oo sanadkii hore ah bishiisii 7aad ayaa maxadkaasi ay inoo furmay fadlan min allahi tabaaraka wa tacaala wa nicmatan hadda waxaynu joognaa xafladdii iyo maamuusidii ardaydii ugu horreysay ee ka qalin jabisay dibloomka barashada afka af carabiga dibloom alluga alcarabiya xaqiiqatan machad almacaarif si guud ahaan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb ah الdiraasaat الsharciya oo lagu barto culumta sharciga oo ka kooban icdaadigii iyo thaanawigii ama secondarygii qaybtaas arday baa markaa dhigata baranaysa culumta shareecada waxna lagu baro yani culumta shareecada ee kala duwan xadiidka fiqiga caqiidada iyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo alluga alcarabiya hadday tahay ku hadalkii iyo naxwihii sarfigiiba qaybta labaadna waa qaybta lagu baranayo dibloom alluga alcarabiya ama barashada afka af carabiga dibloomkaas dibloom alluga alcarabiya ee machad almacaarif waqtiga ama taymka aan ugu talagalnay ama waqtiga iyo zamanka loo wax weeyaan qoondeeyey waxa uu ahaa muddo sanada ilaahay mahadiina ardaydii waxa weeye sanadkii hore bishii 7aad dhowr iyo 10keedii daraasadu ay u bilaabantay maanta oo aynu joogno bishii 8aad 15keedii xafladdii khitaamka ama dhammaystirka barnaamijka ayaynu joognaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadi ardaydaas baranaysay dibloom alluga alcarabiya waxaa xoogga loo saarayey cilmiyada kala duwan ee ku saabsan ama culuum alluga alcarabiya la isku yidhaahdo ama afarta mahaaro almahaaraat alarbaca la yidhaahdo hadday tahay mahaaratu alqiraa'a mahaaratu waxaa kale oo ku jiray mahaaratu alxiwaar oo wada sheekaysigii iyo ku hadalkii ardaydu qaabkay u wada hadlayeen waxaa kale oo la socday mahaaratu alistimaac dhegaysigii ardaydu waxa weeyaan ay dhegaysanaysay kadalik alluga alcarabiya oo maadooyin gaara ay ku qaateen mahaaraadka kala duwan ee xiwaarka iyo istimaaca iyo wada sheekaysiga iyo kitaabada iyo qaabka wax loo qorayo ah ayaa ardaydaasi bixamdillaahi caza wajal sanadkaa ay qaadanayeen saacadaha ardaydaasi ay wax dhigteen marka la isku celceliyo 360 saacadood 360 saacadood ayaa ardaydaasi ay wax dhigteen fataraadka ama waqtiyada wax la kala dhiganayaana waa kala duwaneed waa kala badnayd oo waxa ugu muhiimsanaa ardayda maalin walba soo galaysa ama casar ama habeen iyo ardayda soo galaysa waqtiga khamiista iyo jimcaha ardayda waqtiga khamiista iyo jimcaha waxa runtii aan xawilnay waqtigooda in la leekaysiiyo ama la gaarsiiyo ama lagu dhadhaweeyo ardayda qaadanaysa maalmaha caadiga ah ee 5 maalmood duruusta soo xaadiraysa xaqiiqatan ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadi waxaa kulley aan aaminsanahay ardayda sanadka baranayay culumta luqadda carabiga waxay barteen xog iyo cilmi runtii culus oo qaayo iyo qiimo badan oo ku saabsan af carabiga haddii ay tahay ku hadalkiisa iyo ku dhawaaqiisa dhegaysigiisa iyo kadalik aydan waxaa ku saabsan xagga tacbiirkiisa iyo qaabka wax weeya loo cabirayo afka alluga alcarabiya xaqiiqatan kolley way jiraan ama waan aaminsanahay muddo sanada inaanay sanadkaasi aanay ahayn waqti la odhan karo yacni alluga alcarabiya barashada la baranayo af dhan oo afka ah alluga alcarabiya muddo sanada in waxa weeye lagu dhameeyo waa wax u baahan mar walba
ardaydana runtii aan u sheegnay in badanna runtii aanu ka wacyigelinay in waxa ay barteen ay tahay mafaatiix aad iyo aad u muhiima oo ay ku sii wadi karaan aqoontooda oo ay ku sii kordhin karaan aanay ahayn sanadkaa ay barteen culumta luqadda carbeed aan la odhanaynin dee boqolkiiba boqol heerkii aanu doonaynay ama heerkiiba la gaadhsiiyey laakiin mafaatiix fiican sanadkaa ay barteen culum kala duwan runtii taasoo aan ka dareemayey istibyaanada iyo waraaqii ardayda aan u qaybiyey ardayda aanu ku wareysanaynay xogta sanadkaas macluumaadkii ay faa'iideen iyo waxa ay qaateen iyo wixii ugu muhiimsanaa ee ay ka faa'iideen mahadka ilaahay subxaana wa tacaala mahadii waxaan aaminsanahay ardaydaasi insha allah inay cilmiga sii wadan doonaan ardaydii guulaysta inay noqon doonaan biidn illah caza wajal aqoontooda sii kobciya sii hormariya tirada ardayda hadda inoo takharujtay ee dhammaysay dibloomka barashada afka af carabiga taqriiban waa dhowr iyo 70 arday 75 arday ilaa 76 weeyaan ardayda hadda inoo dhammaysay xagga inamada waa 250 xagga hablahana waa 24 waa wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiyo runtii dee mustawihii waxaan xasuustaa ugu horreeyey ee maxadka aanu furno ardayda noo fadhiisatay ee dhammaysatay mustawahaas tiradoodu waxay ahaayeen 147 arday ayaa mustawihii koobaad dhammaystirtay oo ikhtibaarka u fadhiistay oo kashf darajaadkoodii la hayaa laakiin ardaydii dhammaystiratay bixamdillah caza wajal waxay noqotay nisfiga ardayda mustawaha hore wax way dhammaysay waana wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiyo oo dee sanadkaa dhan ardaydaasi inay soo sabraan 75 arday 76 arday sanadkaa dhan inay soo sabraan oo ay u dulqaataan duruusta iyo xisaska ay qaadanayaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiyo tafaasiil intaa ka badan insha allah waxaynu ku qaadan doonaa taqriirka مثلا ay xafladda dhexdiisa inuu iman doona insha Allah tabaaraka wa tacaala ardaydana waxaynu u rajaynaynaa insha Allah inay guuleystaan ardaydii dadka iyo dalka iyo dunida iyo diinkoodaba wax taray anfaca inay noqdaan باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين